habeenkii markuu mugdigu ugu qaro weynaa degmada yar ee buur libaax waxaa ka baxday korontada si lama filaan dhammaan guryihii waxay galeen gudcur gebi ahaanba la maqli karo dabayshuna waxay la mid ahayd qof si kadis ah u neefsanaya oo daaqada taagan qof walba oo deegaanka deganaa wuu ogaa in guriga ugu dadaweyn xaafadda guriga reer baarqab uusan marnaba noqon meel la dul maro habeenkii waxay odhan jireen gurigaasi wuxuu xambaarsan yahay sheekooyin aan qofka raba inuu caafimaadkiisa ilaashado uusan xiisayn caawa ayaan oo ahayd gabar dhalinyaro ah go'aansatay inay gasho gurigaas iyadoo ay ku kaliftay dareen ah in ay ogaato waxa dadku ka baqayaan iftiinka taleefankeedu wuxuu ahaa waxa keliya ee ay ku tiirsan tahay markay albaabka guriga riixday cod daran oo birsimbiriiraxaysa la mid ah ayaa ka soo yeedhay wuxuu ahaa cod qof u eg oo daqiiqad kasta la murmaya ha soo gelin ayaan waxay u malaysay in dabayshu ay albaabka garaacday waxay qaaday tallaabo ay la jirto qalbi gariiraya qolka hore wuxuu u ekaa mid dad ku noolaayeen laakiin muddo dheer la dayacay dhanka sare ee gidaarada waxaa dul fadhiistay qiiq madow oo dhumuc leh oo u ekaa sidii qiiq dab ka dhashay laakiin dab ma jirin wax kasta oo guri ku yaal u muuqday kuwo aan halkaan ku habboonayn sida qof kale oo ka hor yimid ay u dhigtay si uusan qof u fahmin markay gudaha u sii socotay waxay maqli jirtay dhawaaq aad u hooseeya sida in ay carruur yaryar ku murmayaan meel hoose waxay u janjeertay qolka jiifka hore ee guriga albaabka hortiisa waxaa ku dheganaa sawir qadiimi ah carruur 4 ah oo wejiyadooda leexsan yihiin indhahoodu hoos u degan yihiin sidii ay ka baqayaan qof ama wax ka dambeeya sawirka ayaan waxay u dhaqaaqday iyadoo gacanta ku haysa taleefankeeda halkaas oo ay iftiinka ku saaraysay sawirka markii ay soo dhowaysay indhaha carruurta ee sawirka ku jira si lama filaan ah ayay u muuqdeen kuwo kor u eegaya iyadoo naxdin la neef qabatay ayay dib uga booday laakiin markay mar labaad eegto sawirka waxba isma beddelin sida ay ugu sii socotay qolka gudihiisa codkii carruurta ayaa bilaabay inuu xoogaysto wuxuuna isu beddelay sidii lagu qaylinayo maxaad u timid maxay kaa doonaysaa ayaan wadnaheedu wuxuu bilaabay inuu si xoog leh u garaaco waxay rabtay inay dib u laabato laakiin geesinimadeeda khaldan ayaa ku qasabtay inay sii socoto markay gaaray bartamaha qolka albaabka gadaal uga xirmay si xoog leh iyo iftiinka taleefankeeda oo isla markiiba bakhtiyey mugdi buuxa ayaan waxay neeftay iyadoo gacmaheeda ku raadinaysa dariiqa laakiin waxay taabatay oo keliya gidaar jilicsan oo uusan horay u jirin waxayna maqli jirtay neef aad u hooseeya oo ka imanaya meel aad ugu dhow sida qof ku soo dhowaaday iyadoo aan la arkin waxaan kuu haynaa wixii aad soo raadin jirtay codkani wuxuu u ekaa mid carruur badan wada hadlaya isku mar qolka wuxuu bilaabay inuu qabow noqdo neeftuna aad ayay u adkaatay dabadeed iftiin gaaban oo casaanka u eg ayaa ku shiday geeska qolka ayaan way u jeesatay waxay aragtay 4 carruur ah kuwaas oo sax ahaanta la mid ahaa kuwii sawirka ku jiray laakiin wejiyadooda way qaldan yihiin ilkahoogu waa faro dhaadheer oo qaloocan indhahooduna waa madow hodan oo aan wax if ah lahayn carruurtii waxay u soo dhaqaaqeen astaamo aan ku habboonayn jirkooda lugo qaloocan gacmo dheeraad ah iyo madax marba dhinac u leexanaya sida qof xanuun daran haysato ayaan waxay isku dayday inay qayliso laakiin cod kama soo bixin afkeeda carruurtii waxay u eegaan iyagoo leh waxaan rabnaa inaan ku tusno waxa ay dadka kale ka qariyeen waxa hooska gurigan ku jiray haddiiba gadaasheeda waxaa ka soo baxay weji mugdi ah oo waaweyn indho aan qaab lahayn oo madow u qubanaya sida biyaha webi dhoobo leh gacmo dhaadheer oo madow ayaa isku duubay ayaan iyadoon xitaa neefsan karin guriga dibaddiisa dabayshu mar kale si tartiib ah ayay u istaagtay subaxdii dadka xaafaddu waxay dhaheen korontadu caadi ayay u soo noqotay laakiin mar dambe qofna ma arkin ayaan taleefankeeda waxaa laga helay iridda guriga reer baarqab halkaas oo uu ka duubmay muuqaal kooban iftiin gudcur ah oo ka muuqda carruur aan wejiyo lahayn oo ku soo jeeda codna ku odhanaya mid kale ayaan helaynaa gurigaas ilaa maanta qof ma soo galo